بسم الله بعد التيفي غير انت موقعي مقاعي تقانو هذوك سلام السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام سيدا ودوكسونتين أنا مقاعي محمد علي عبد الله أحنا قدومي كحجان كمامل كي ماليد الدجمة جنبوله أحنا قسمها قدوميها الدجمة جنبوله والدجمة عالمية كابها الدجموين شروطنا وذبوحان والدجمو وحول بق الدجمة الصومالية أي لا ذا وحكسي زائد له هذا طالعت حول هذا آلهة بارو وحول بق دجمة ده مركا حغير والدجمو يعني ما أنت جعنت دولة كير شبه لك بقى dad keedana fatahaado iyo masaaib iyo cudurro iyo balaayo ay hareen annaga marka hadda waxaan go'aansanay degmadaas inaan juhdi badan gelino ay say ahaa jirtay laga bedelo degmada Jaanis waxay u haysataa maanta state-ka isbedelka ka dhacay xildhibaan ay leedahay iyada deegaan doorashada ah ra'iiska oo jamhuuriyadda state-ka oo si gooniya waxay gashay waxay gudo garanayo kaalinta dhimana marka waxay tahay dadka deegaanka hadba shay dawladnimada u jeceliyeen ama ay waxay u baahan yihiin ay u muujiso karaan ama ay soo weydiisan karaan cid matasho intaas kaliya degmadu baanta inay xorowdo si loo geeyo caafimaad biyo nadiif ah fatahaadaha soo yaani tabarucaad loo geeyo intaas oo waxay ku xiran tahay dadka hadba si ula shaqeeyaan maamul annaga ka maamul ahaan aniga maxamed caliya har iyo habeen waxaan u ballan qaaday degmadaas wax kasta ay u baahan tahay in la helo anigoo madaxdayda iyo xildhibaanadayda state-ka la kaashanaya tan xigto degmada dadka ugu badan ka ganacsado waa dadka ka bax jawhar oo iyadana yani u dhashay okay waxa la rabaa marka degmada in la muujiyo marka wax barbalay ma laha anaga hadda 2 sano ha qaad 3 sano ha qaad jawhar martiin ku sii ahana inaan tagaayna waaba oo aniga waxaan ku kalsoonahay khibradeyda xildhibaanada meesha ima talo khibradda mas'uuliinteeda uu sareeyay Hirshabeelle madaxweynaha imaamka gobolka ah waan tagaa bi ay dariiqa doo ilaa yiraahdo dhulooyinka waa badan yihiin waa dhul baaxadiisa weyn yahay dhulka fatahaadaha ay gaareen oo yaraan 30 kilomitir oo dhan yahay oo halkaas ugu shashayso geed cadlow halkaasna jamaaco jilyaal meel yiraahdo jamaac dagiirane ilaa ay Carmooley jariiro dhulkaas oo dhan 4 fasal umada waxba kama qaadan marka taas waxaan farayaa beesha caalamka iyo qolooyinka NGO-ga iyo madaxda state-ka inay fiiro gaar u soo yeeshaan dadka qaarkiis iyagoo soo wax beelay jawhar nala joogaanba xoolahi biyo ay u calaan malaha ceelashooda waa qaraar ceelooyinka qoda iyagana baaqasan u faraynaa in jariiro kale biyo ceel nadiif laga helo Carmooley oo kale geed cadlow oo kale waa in biyo nadiif oo helaa taasna insha Allah waxaan ku rajaynayaa xildhibaanadana waa og yihiin hawshaas waa wadan iyaga naftir wallahi xaaladda caafimaad waa aad bay u liidataa dadka waliba caruurta u sii badan tahay haweenka ay saameyn weyn ku yeelatay waliba waxaan hadda haynaa gabdho iyo foola laga soo qaaday biyaha ka xagga meel la yiraahdo dalooshinkii dhulkaas meel la soo marsiin la waay doonta ilaa yani qofka mar walba heli ma karaayaba qaarkood gabdhiisaas ay umul raaceen istalkan jawhar hadda aan joogno ilaa 7 qoys 8 qoys oo caruur keenana jiraba reer Gambola caafimaadka meesha marka aad buu liitaa biyahana sabab u ah